وحكومة هالسي انتو دات كده دي المرة وقصاص هلا مري انتو لاي قصاص بوموت هلا مري كتبك إلهي وحكيش وردك عطسن هيا ها يا اللي قدام بابل يا اللي قدام بابل شرع إلهي هلا مري وان كعلن هي يا اللي قدام بابل وحا انت سدير ووهلية maalinku dadkan afarta oo gabadha ku jira iskor saarahay maalin toddobaan ugu tagna oo nari dadkan iska busaadax waa diiday maalinna 10 yaan ugu tagna waa diiday maalinna 42 ruux baan ugu fariisan saddexdiiba waan ugu diiday 40 kaas iyo labadaas ninkii ku jiray oo waa nabadoon lahaa يا ساكا دعوين هيا بلا محمد آدم قرمو ويا للي وانك أفرتك يا لبضن أس طريقة كل لقاكيو إجابه ليسان أسكدر كدر يرينك كوتشري يا هذا وحال لي وحيري نكان وحول ما يلبارك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وردتكو إنه لمن وآخر غفل بأسك إيه عمل كيس اللوجة تيسو ما يوجا محاوها صوت وحوسك حالين ما يو وحاوي وحاوي وحيري ننرقه لو حما ينشر لمبا وحيري ده أدون هلكا رونتا لمبا يجري وحوها لماك ديق ميرتد الله أو صفق الله أو دتك ديقي سلقوتا oo la cuna oo isku xariiriyo oo isku naaga guursado oo ku diimi maayo ilaahay guriga iyo maamul ilaahay baa leexiyay maamul ilaahay yalla dadka dhigiisu la cabi jira nabadoonna waa iska ahaaba lala الله الله أفرتك يا سد أفرتك يا لبض قف لينك كوها وحرف العيبة هذا أنت الدولة أنتقلي كان وحو قبل الله ما أركله أنا لله وأنا إليه راجعون ووحان لا أركي كرين ونلع كرين ونلقيسن كرين هلا قبحوا أساق إيا عيدا كيسي إيقا دادك اللعب بكري وكالي ياشاها ونأساق آدن قرماء محمد آدن قرماء أهين كوة كري ودادكو شيق هايو أما كري waxaan rabaa dadkaas Soomaaliyeed maxkamadda hala saaro sharciga hala geeyo maamulka waxa ay ku mutaan kitaabka Ilaahay oo ku dhalanay oo ku dhaqanayno waxay ku mutaan hal lagu mariyo hana la ogaado warka beenta oo Maxamed Aadan Gurmo dadka laga magac dhabay وهذا أنا وركي سني كاساس وقاري ذاتك كمتك ودون شاعية ذلك وركو ديان لحالين وكل علي وركو ديان لحالين وحاكلو انت سدير ماشي اللي يراها شب اللين او كسمانيو يا ماشي ساكا انشوغنا وبيقو اهلوق دولو ماشي سا انت كدح شب اللين دالك اللبحي haddaan laga qabanin ninkaas inta dambe Israa'iil war inta dambe ana u dareeyay intii tagto aqara u kacday aqarayba u kacdo waa tagtay adduunka iyagu isdaayeen inta dambe oo dhaqashada rabta oo adduunka hadda ku noolo inay dhaqata rabta magaceen jiriye intaas u daneeyay oo laga qabta ninka wareeka dadka iyo dalka baa laga qabto وريك دتك يا دلك بها لقى قبت مجين شريه نك دتك يا دلك بها لقى قبت نك دتك يا دلك بها لقى قبت هذا الكيو ماشي عسان يا كوسو كفن هيا وقاعدة مع السلامة نبضنا الله نيله أنا قلنا سجاشن يشم بنشرة أركان الإسلام كان وكل غنية نن بنا آدم ومسلم وشهادة هي إلى أن ظلمه وندلن كره إلهي يقول إلهي نكيد نكيد مي وركي إلها سوي جاتشوجا إلهي جاركين نبض ويه بس
odayaal iyo waxgarad muddo toddobaad u joogay magaalada Muqdisho sideynta wasiirkii arrimaha amniga Jubbaland Cabdirashiid Jaran oo shalay dib ugu laabtay gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Doolow ayaa waxay sheegeen in ay natiijo ay ka soo bixi weyday dadaalkii ay ku doonayeen in ay ku soo daayaan Cabdirashiid Jaran oo ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland odayaasha ayaa xusay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ula dhaqmay si baalmarsan sharciga iyo dhaqanka sida ay warka u dhigeen odayaashani waxaan ahayn odayaasha berri haddii la xiro Farmaajo u doodi lahaa oo dhihi lahaa maxaad ku haysataan wuuna naga soo diiday inuu sii daayo wasiirka mana rabno in aan bannaanka u soo bixinno wixii aan kala soo kulannay ayuu yiri mid ka mid ah odayaashii Farmaajo u tagay oo saxaafadda la hadlay odayaasha ayaa xusay in madaxweyne Farmaajo ka diiday ergeyntii ay wadeen waxayna xariga wasiir Jaran ku tilmaameen mid xaq darro ah isla markaasina xadgudub loogu sameeyay sidoo kale odayaasha ayaa sheegay in madaxweynaha uu sheegay in aan wax dambi ah lagu hayn wasiirka balse xoog lagu haysto madaxweynaha wuxuu noo sheegay in aysan jirin dambi lagu hayo wasiirka haddii ay sidaas tahay waxaa lagu haystaa xoog ayuu yiri mid kale oo odayaasha kamida waxaan madaxweynaha uga nimaadnay meel fog waxaana ahayn odayaal badan oo miisaan leh balse niyad jab ayaanu kala soo laabanay Muqdisho ayuu intaasi sii raaciyay hadalka ka soo baxay odayaasha ayaa imanaya xilli dowladda Soomaaliya ay dhowaan sheegtay in wasiirka loo haysto dambiyo waaweyn lana soo taagi doono maxkamadda sidoo kale Amnesty International ayaa soo dhaweysay xariga wasiir Jaran waxayna ku baaqday in si degdeg ah cadaaladda loo horkeenayo madaxweynaha dib loo doortay ee Jubbaland Axmed Maxamed Madoobe Axmed Islaam ayaa isna xariga wasiirka ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn maalintii shalayta ahayd oo uu khudbad aad u dheer jeediyay una si weyn ugu tilmaamay in ay ka leexatay sharcigii dalka u yaalay wuxuu ku mutahaalasay intuu dadkeeda dileen marow qisaasta hala mariyo intuu laayay qisaasta boobota هلا مريا كتبك إلهي وحكيش وردين كعطسن هيا يا اللي قدام بابل يا اللي قدام بابل شرع إلهي هلا مريا وان كؤلين هي يا اللي قدام بابل وها انت سدير ووهلية مالين كورد كان أفرتا أو قبضة كتير إسكور سارهاي مالين تدبان أقول تجنا ونردت كان إسكبو سارها وديد maalinna 10 yaan ugu tagnay waa diiday maalinna 42 ruux baan ugu fariisan saddexdiiba waan ugu diiday 40 kaas iyo labadaas ninkii ku jiray oo waa nabadoon lahaa yaa saaka dacweyn hayaaba la leeyahay maxamed aadan gurumo weeyaa la leeyahay waa ninkii 40 iyo labada nin oo dariiqa ku dhaqaajiyo igaba helaysaan asku diray ku dareeriyay ninkii ku jiray yaa hada waxa la leeyahay wuxuu yiri ninkaan wuxuu dhimay laba arko laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wardadku inuu dhiman oo aqar qof walba asaga iyo amalkiisa looga tagay Soomaaliya maxaa waxaas u wata waxba saka xaalayn maayo waxa weeye wuxuu yiri nin ragaho lagu ximaayeyn jiray nin baa wuxuu yiri de adduun halka dhuunta nin baa yiri wuxuu ahaa nimanka dhiig miratada la oo safka la oo dadka dhiigiisa la quuta oo la cuna oo isku xariiriyo oo isku naaga guursado ahaa oo ku diimi maayo ilaahay guriga iyo maamul ilaahay baa leexiyay maamul ilaahay yaa leexiyay dadka dhiigiisa la cabi jiray نبضون واسك هابا الله الله أذا الله أفرتك يا سد أفرتك يا الله بدأ قف لينك كوها وحرف العيبة هذا أنت الدولة أنتجلي كان وحو قبل الله ما أركله أنا لله وأنا إليه راجعون ووحن لا أركي كرين ولا كرين ولا نجيسن كرين هلا قبحوا أساق عيدا كيسي dhiigga dadka la cabi jiray oo kaaliyayaasha ahaa
oon asagaas aadan guruma maxamed aadan guruma aan ahayn kuwa kale oo dadku uu sheegayo ama jira waxaan rabaa dadkaas Soomaaliyeed maxkamadda hala saaro sharciga hala geeyo maamulka waxa ay ku mutaan kitaabka ilaahay oon ku dhalanay oon ku dhaqanayno waxay ku mutaan ha lagu mariyo hana la ogaado warka beenta oo maxamed aadan guruma dadka laga magac dhabay oo hadda aniga warkiisa ninkaas soo gaaray dadka ka midka oo dhuuna raaciyada adaala ku warkooda yaan la xaalayn waa ku celiyay warkooda yaan la xaalayn waxaa kaloo intaas dheer meesha la yidhaaha Jubbaland oo Kismaayo iyo meesha saaka aan joogno webiga oo luq doolow meeshiisa inta ka dhaxlay Jubbaland dalka la baxay haddaan laga qabanin ninkaas inta dambe Israa'iil war inta dambe ana u dareeyay intii tagto aqara u kacday aqarayba u kacdo waa tagtay adduunka iyagu isdaayeen inta dambe oo dhaqashada rabta oo adduunka hadda ku noolo inay dhaqata rabta magaceen jiriye intaas u daneeyay oo laga qabta ninka dadka iyo dalkaba laga qabto magaceen jiriye ninka dadka iyo dalkaba laga qabto hadalkaygu meeshaasaan yaan ku soo kufinhayaa ogaada maca salaamo nabadna allahana yeelo aniguna 95 baan jiraa arkaanu islaamkana waa ku dhaqanaya nin bini aadan oo muslim oo shahaadanaya inaan dulmo oon dulan ku rahayo ilaahay iguma oga ninkeedna ma warkii inahaasuu iga jooga ilaahay gargaarkii nabad weeye waa sida